xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa deganeyd habeenkii xalay iyadoo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa maamulka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dawladda federaalka Itoobiya. dadweynaha magaalada Jigjiga ayaa subaxii shalay ku waabariistay ciidamo ka socda dawladda federaalka Itoobiya iyagoo oo la wareegay xarumihii dawladda iyo madaxtooyada maamulka. madaxweynihii dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayay ciidamadaasi la wareegeen iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo aan la garanayn meel ay ku sugan yihiin madaxweynaha iyo xubnaha kale ee wasiiradu. madaxweynaha ayaa abaaro 4 galabnimo ee maalinkii shalay waxa uu ka hadlay telefishinka maamul deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaanu dadweynaha u sheegay inay istajiyaan ilaaliyana nabadgelyada. dadweynaha ayaa ka cadhooday arintaasi waxaanay sameeyeen dibadbaxyo rabshado wata waxa la boobay dukaano iyo bangiyo iyadoo oo la dilay dad ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya. waxa haatan la xaqiijiyay inay dhinteen dad gaaraya 10 ruux. rabshadahan ayaa ku faafay qaybo kale oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. loolankan u dhaxeeya maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawladda federaalka ayaa la sheegay inuu ka kacay arrimo la xiriira saami qaybsiga shidaalka laga helay dhulka Soomaalida. dadweynaha magaalada Jigjiga ayaa sheegay inay saaka ku waabariisteen ciidamada rabshadaha ka hortaga oo gaaf wareegaya wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Jigjiga. ciidamadan ayaa sita budhadh waxaanay sitaan gaashaan caaga. jabhadda ONLF ayaa ka hadashay xiisadda ka soo cusboonaatay maamulka Soomaalida Itoobiya waxa aanay dhaliileen faragelinta military ee dawladda federaalka Itoobiya ay kula kacday maamulka deegaanka Soomaalida. afayeenka jabhadda Cabdilqaadir Xasan Hirmooge ayaa dawladda federaalka ugu baaqay inay si dhaqso ah u joojiso faragelinta militariga dawladda Itoobiya ayaa iyaguna ka hadlay xiisadda waxa aanay sheegeen inay sameynayaan fal kasta oo ay ku sugayaan nabadgelyada. waxa aanay sheegeen inay amar u haystaan inay ka hortagaan rabshadaha ay sameynayaan dadweynuhu. maamulka gobolka Tigray ayaa cambaareeyay xiisadda ka taagan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. maamulka Tigray ayaa labada dhinac ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada lagana hortago rabshadaha. bayaan ka soo baxay maamulka Tigrayga ayaa waxa lagu sheegay inaanay u dul qaadan doonin falalka geedi socodka nidaamka dastuuriga ah lagaga hor imanayo. Hooda Ismaaciil Qalbi, telefishinka